afartan sano kadib nin lagu qabtay ama ka mid ahaa maxaabiistii dagaalkii 7/7 ee dhex maray Soomaalida iyo sidoo kale weliba Itoobiya. Ninkaasi oo ka mid ahaa maxaabiistii waqtigaa la qabtay muddo 40 sano ana ku xidhnaa mid ka mid ah jeelasha Itoobiya ayaa la soo daayay, waxaana isku haystay laba qoys oo uu midkoodba sheeganayay dhalashada ninkan. Se ahaatee barasaabka gobolka Roodijeex ayaa dhexdhexaadinayay reerkana si xaqa ugu kala garqaaday, waxaana ka mid ahaa hadaladii barasaabka gobolka Roodijeex. waxaa jira sida warbaahinta kulli ay kala socoteen social media nin Ethiopia laga soo helay oo xanuunsanaya oo dad badan ay sheegteen inuu walaalkood yahay, oo qaar ay sheegeen in dagaalkii 7/7 dadkii maxaabiista ahaa lagu qabtay uu ka mid ahaa, oo qaar ay sheegeen inuu dhowr iyo 20 sanadood ka maqnaa. ninkaasi waa ninka halkan fadhiya. magaciisa maxaa Axmed Siciid Ismaaciil baa ninka magaciisa hadda la inoogu sheegay. isagoo oo kulli timo badan lahoo aad u raamaystay ayaad warbaahinta ku aragteen oo facebookyada iyo aad loo soo dhigay, oo timo badan oo raama ah oo muddo dheer aan timaha laga xiirin. hadda timii waa laga xiiray oo waa kulli sawirkiisii hore aragteen iyo iminka uu kala duwan yahay. ninka dad aad u fara badan oo dhammaan dhulka Soomaalidu ay degto ka yimi ayaa u yimi inay dad ka maqan yahay inay ogaadaan inuu ehelkoodii yahay. raaskii Itoobiya ka soo helay ninkan ee keenay wadanka media sawirkiisa soo dhigay ilma askar dooyo markii odayaashoodii jaamac ugu weyn ay uga yeedheen meel bahol la yiraahdo, odayaashii waaweynaa u yeedheen arrintii ay baadheen waxay ogaadeen ninkan inaan walaalkood ahay. sida halkan ay media ka sheegi doonaan waxay ogaadeen oo cadeeyeen inaanu ninkii ay ku tuhunsanayeen ee walaalkooda dagaalkii 7/7 ay ku waayeen inaanu ahayn. ninkii ay ku tuhunsanayeen way keeneen. qolada kale laftoodu iyaguna baadidoon bay ku jireen, warbaahinta ka hadleen inuu ninkaasi walaalkood yahay bay sheegeen. iyaguna way ku mahadsan yihiin oo way nagu soo siimeen, annaga inoo yimaadeen waxaan ugu leeyahay hawshaas jirto aan doonayna wax nagala qabataan, wax tallaabo kala may qaadin. iyagana waan u mahadnaqaynaa sida hawsha ay noogu soo simeen ee ay noo soo gaarsiiyeen. waxaa jira dad fara badan sidaan idiin sheegay gobolada fara badan oo dhulka Soomaalidu degtaa ka yimi oo markii ay ninkan u yimaadeen arkay ninkii ay doonayeen noqday. waxaana loo sheegay inay hadda joogaan qaar kale ciddii tuhunsan ama tuhun kaga jiro ninkan way nala soo xiriirayaan, waayo waxaana loo sheegay in dad cusub yimaadeen. waxaa lagala xiriirayaa ninkaas oo magaciisu uu yahay Axmed Guuleed Ducaale. waa nin shaqaale dawladeed, waa nin Hargeysa degan, ID kaarkiisii iyo kaarkiisii shaqaalanimo labadaba halkan aan ku haynaa. isaga ay la soo xiriirayaan ciddii tuhun kaga jiro inay cid kale oo haddii tuhun ka galo, waayo ninkani waa nin in badan maqnaa, waa nin raamaystay, waa nin foomkiisii iyo muuqaalkiisii isbedelay. waxaa laga yaabaa dad badan oo dad ka maqan yahay inay is yidhaahdaan soo eeg. marka ninkaasaa lagala soo xiriirayaa. qoladan soo wareejisay gacanta ku haysana waan u mahadnaqaynaa. qoladan hadda sida odayaashu ay sheegi doonaan wuxuu garanayaa deegaankii berigii hore miyiga uu joogi jiray, dadkay wada noolaan jireen, ehelkiisii. su-aalo badan marka la weydiiyo maaha nin maskaxdiisa wada doorsoontay, wuxuu garanayaa dadkii yaraantiisa ay yaqaaneen, dadka isku deegaanka ahayn oo dhan buu sheegayaa, tilmaamo badan buu sheegayaa. maadaama ay caynkaa tahay oo nin maskaxdiisa wada doorsoontay oo dee runtii aan waxba kala garanayn aanu ahayn, ee uu garanayo dadkii xitaa kale ee aan isku qabaa'ilka ahayn ee deegaanka ay wada degan yihiin uu cid ka garanayo, waxaanu ku wareejinaynaa qolada hadda uu gartay. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qoyskii isla markaa ka soo kaxeeyay Itoobiya iyagoo ku wareejiyey faamiliga kale ee dhalashada qofkan sheeganaya. anigoo ninka walaalkii la soo helay walaalkii oo jaamac askar la yiraahdo
oo da'daydu 80 iyo guyuu tahay maanta iyo maalintii in ninkaasi uu dhashay gacanta ku hayay markii la isku qabtay la ii yeedhay ninkaas waan xaqiiqeeyay inaanu ahayn walaalkay isagana waan imtixaamay si fiican oo sharaf leh oo wanaag leh bay noogu wareejiyeen miidiyahana watay ka hadleen oo dad miidiyuhu wuu ogyahay inay yiraahdeen 43 sano naga maqnaa oo la xidhay ninkana waligii lama xidhin Itoobiya ma xidhin Soomaaliya ma xidhin meelka Djibouti ma xidhin cidina ma xidhin Djibouti sharci buu ku leeyahay oo ku galay ciidamada sharciga la u galiyay ka mid ahaayeen sharci buu ku leeyahay المهم waxaan ku soo gabagabeynayaa waan leeyahay walaalkay weeye Axmed Saciid Ismaaciil baa la yiraahdaa ninkii doonaya uu nehelayaa